السلام عليكم دمان جنرالka Munir marsi saaxiibada ku xiran soo dhawaada saaxiibayaal waa saaxiibkiin Munir waxaan rajeynayaa inaad nabad qabtaan alxamdulillaah annagoo nabad qaba ilaahay nimcadiisa iyo caafimaadkiisa iyo farxadda Allah noo ziyadiyo maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo afar balanqaad oo Alla noo balanqaaday subxaanahu wa ta'aala insha Allah intaana hore mowduuca u gelin fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe saaro haddii aad muuqaalka ka hesheen like saaro muuqaalkan aan bilaabano muuqaalka sida ogtiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu noo abuuray in aan caabudno oo cibaado kaliisa u kala yeelno inta markaa aan nool nahay qof walba intuu nool yahay nolosha ku jirto ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu caabudo waajib ku tahay ilaahay baa nagu adoonsaday ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisana wuxuu sheegay yani in cibaadadiisa asaga in la caabudo noo abuuray ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saas darteed marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala cibaadadiisa markaan ku jirno waxyaabo badan oo nala faray jiraan waxyaabo badan oo laga reebay oo la rabo inaan sameeynin way jiraan marka waxyaabahaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu na amray waxaan laga rabaa inaan sameeyno waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala naga reebayna inaan ka reebtoono ka harno ayaa la rabaa oo marka taas waxa ay noqonaysaa inaan hadhow marka aan noqono adoomo wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xiran oo amarkiisa qaatay sidoo kale ilaahay subxaanahu wa ta'aala kalimaha rasuulkiisana calayhi salaatu wasalaam wuxuu naga reebo inaan ka reebtoono wuxuuna farana inaan fartoono intaas marka waxa waaye sida diinta ay ku socoto waaye wixii ilaahay sameey ku dhaha sameey wixii ilaahay ka reebay rasuulkiisana ka har marka waxa jiraan afar balanqaad oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo quraanka uu ku balanqaaday oo anaga uu noo balanqaadayo hadii aan sameeyno yani aan faa'iideeno yani balanqaadkaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ka helan afarta balanqaad waxa ugu horeeyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri hadii aad igu shukrisaan waan idin ziyaadinayaa oo ayadu waxay leedahay la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in adaabi lashadiid hadii aad igu shukrisaan oo nimcada aan idin siiyay aad igu shukrisaan oo dhahdaan ilaahay baa shukri iyo xamdi u sugnaaday ana waa idin ziyaadinayaa oo yani nimcadii aan haysatay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka hore asalkeeda asaga ay ka timid oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kugu minaystay hadii aad ku shukriso oo dhahdo ilaahu adaa mahadsan ilaahu adaa shukri iyo mahad iska leh ilaahay hadan nimcadii uu ku ziyaadinayaa oo kula wajibaarayaa sidoo kale nimcadaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kugu ilaalinaa mid ayada ka badan oo ka fiican uu ku siinayaa marka taas waa balanqaad ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu noo balanqaaday oo hadii aan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku shukrino aan helayno ziyaado ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaqiisa ka timid marka hore ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay marka nimcada ka timid oo ma bikum min ni'matin fa min Allah hadii aan ku sii shukrinana ilaahay nimcadaas uu na siiyo oo xaqiisa ka timid uu noo ziyaadinayaa mid ka labaad oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo balanqaaday wuxuu noqonayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri ixusa ixasuusta macna sheega ixus waan ku xusiye ayuu yiri ilaahay subxaanahu wa ta'aala macnaha ixusa waa idin xusiye waxa aayada marka waxay leedahay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa ku leeyahay fadhkuruni adhkurkum ixusa aan idin xusay yani ilaahay subxaanahu wa ta'aala markaad xusto tusaale subxaanallah markaad dhahdo ilaahay ayaad xustay oo dhikrigiisa ayaad ku dhawaaqday asaga markaas uu ku xusaya marka uu asaga ku xuso yani xuski aad ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhikrigiisa aad xustay ayaa waxaad yani balanqaad aad leedahay in ilaahay subxaanahu wa ta'aala adna uu ku xusaayo waliba xadiis waxa jirta sheegayso hadii aad ilaahay subxaanahu wa ta'aala aad xusto asana uu ku xusaya saas way yani hadii aad fi jamaacadi aad ku dhaxusto ilaahay jamaaca ayuu ku dhaxusaya oo jamaacadan ka qeyr badan marka mar walba ilaahay aad xusto ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa balanqaad aan ka haysanaa asagana inuu noo xusaayo taasna waa nimco weyn oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ka helnay maxaa yeelay ayada xataa hadii aan sii wadno fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun igu shukriya ixusa igu shukriya hana igu kufrinina yani ha igu gaalowina awaal darnaanina balanqaadka saddexaad ee ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu noo balanqaaday waxay tahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay iweydiista aan idin siiye ud'uuni astajib lakum ay quraanki si ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku leeyahay ud'uuni ibarya oo iweydiista su'aashiin ana isoo bandhiga astajib lakum idin jawaabe yani idin siiye waxaad iweydiistaan idin siiye ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofka hadii wax weydiisto
sida ay u badan tahay waxa waaye boqolkiiba boqol la hubo inuu ilaahay subxaana watacaala addoonkaas wax weydiistay uu u jawaabayo uu siinayo. marka mar walba bini aadamka daciif waaye, markii uu ilaahay subxaana watacaala wax weydiisto yani oo isla markii wixii helin wuxuu isleeyahay alla ama weli yani ilaahay subxaana watacaala ku ajiibin. maya, ilaahay uu ajiibaa wa mujiibu dacwaad. ilaahay waa samiic, ilaahay waa basiir, xaaladaada u jeedaa, waxa aad weydiisanaysid wuu ogyahay, tabartaada iyo yani qofka iyo daciifnimadaada ilaahay subxaana watacaala wuu ka warqabaa oo asagaa ku abuuray. marka ilaahay subxaana watacaala markaa wax weydiisato waxaa ilaahay subxaana watacaala aad ka helaysaa jawaabtii, yani wuu ku ajiibayaa. laakiin ilaahay subxaana watacaala addoommadiisa asaga ka xaal og badan, asaga mar walba og oo baahidiisa iyo meeshay u badantaa og. waxaa laga yaaba waxyaabaha qaar oo ilaahay weydiisanaysid subxaana watacaala inaadan yani inay dhibaatooyinku keenayaan. saas darteed ilaahay subxaana watacaala waxyaaba kaloo ka wanaagsan ayuu kugu jawaabayaa. marka mar walba oo ilaahay subxaana watacaala wax weydiistid ilaahay wuu ku siinayaa, ama isla wixii adiga aad rabtid aad heshide ama wax ka wanaagsan ayuu ilaahay subxaana watacaala ku siinayaa. oo maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala asagaa kaa og baahidaada iyo danahaaga iyo waxa markaas adiga danta kugu jirto. midka afaraad ee ilaahay subxaana watacaala noo ballan qaaday waxay noqonaysaa ilaahay idinma cadaabayo inta aad asaga dambi dhaaf weydiisanaysaan. waa ballanqaad ilaahay subxaana watacaala noo ballan qaaday. yani mar walba ilaahay subxaana watacaala aad u laabanayso oo ilaahay dambi dhaaf weydiisanayso oo istikfaarsanayso ilaahay kuma cadaabayo. yani istikfaarta waxaa lagu xiray cadaabta, yani cadaabta waxaa lagu xiray inaadan waxba istikfaarsanaynin. ama si kale aan u dhahno mar walba bini aadamka ama addoomaha ilaahay ee mu'miniinta muslimiinta ah ee ilaahay dambi dhaaf weydiisanayaan oo ilaahay u laabanayaan mala cadaabayo. cadaabku waa iska noocyo badan yahay, waxyaabo badanaa dadka lagu cadaabaa oo caafimaad dara ay ka mid tahay, faqriga iyo waxyaabo saas oo kale ah, iyo murugada, walwalka, yani qofka nafsadiisa uusan dareemeynin deganaansho oo qalbiga mar walba qalbigiisa qofka uu qalbi kacsan yahay oo ilaahay subxaana watacaala yani uu dareensiinayo hadhow marka hadduu istikfaarta badiyo qalbiga inuu u dego, faqri inuu ilaahay ka ilaaliyo, arsaaqda u waasiciyo, inuu kurbooyinka iyo murugooyinka haystaan ilaahay inuu ka feedo, iyo inuu ilaahay subxaana watacaala caafimaad siiyo. marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi wamaa kaana allaahu liyucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allaahu mucadibahum wahum yastakfiruun. marka hore ilaahay subxana wataala wuxuu yidhi wamaa kaana allaahu liyucadibahum, ilaahay ma ahana mid cadaabo, wa anta fiihim nabi maxamed oo adoo ayaga markaa ku dhex jiro. haddii marka nabi maxamed sal slam markuu nagu jiray yani ilaahay subxana watacaala wuxuu yidhi inta aad nabi maxamed calayhi salaam adiga aad ku dhex jirto, nabi allow inta aad adiga ku dhex jirto ummadaada ilaahay ma cadaabayo. marka maadaama nabi maxamed sal alla alay slam uu dhintay oo la oobsaday, ayada waxaa kusii xigto wamaa kaana allaahu mucadibahum wahum yastakfiruun, ilaahay ma cadaabayo inta ay ilaahay subxaana watacaala dambi dhaaf weydiisanayaan. yani inta ilaahay subxaana watacaala ee addoommada muslimiinta mu'miniinta ay ilaahay dambi dhaaf weydiisanayaan oo ilaahay u laabanayaan oo ilaahay u istikfaarsanayaan ilaahay ma cadaabayo. waa ballanqaad. marka istikfaarta waa muhiim. qofka hadduu istikfaarta maalin walba oo jadwalkiisa ku daro oo mar walba ilaahay subxana watacaala uu dambi dhaaf weydiisanayo oo ilaahay u laabanayo, ilaahay subxana watacaala mar walba uu ilaalinaa, mana cadaabayo oo dhibaatooyinka iyo waxyaabaha dhan uu ka ilaalinaa, oo arsaaqda waasica looga dhigaa, caafimaada la siinaa, wax walba waa loo furfuraa. marka istikfaarta wax fudud maaha, wax la fududaysan kara maaha, oo ballanqaadka ilaahay ayaaba ah inta aad ilaahay dambi dhaaf weydiisanaysaan oo istikfaarsanaysaan oo aad leedihiin astakfirullah rabbi ighfir lii watub calaya iyo adkaaraadka kale la aqriyo, ama af soomaali xataa haddii aad ku aqriso ilaahay subxana watacaala luqad walba waa fahmaa, luqada asaga abuuray. ilaahay intaa u dambi dhaaf ilaahay intaa u laabanayso dambi dhaaf weydiisanayso ilaahay idinma cadaabayo oo ilaahayna ma cadaabayo. waa ballanqaad oo ilaahay subxana watacaala noo ballanqaaday. nabi maxamed calayhi salaam ayaa maalin walba wuxuu samayn jiray 70 jeer ayuu ilaahay dambi dhaaf weydiisanayay. waa nabi maxamed sal slam oo dembigiisa hore dembigiisa dambe la dhaafay. marka wuxuuna barayaa nabi maxamed sal slam maalin walba marmar xadiista qaar waxay sheegaan fadhi walba nabi sal slam 70 jeer iyo wax ka badan ayuu ilaahay subxaana watacaala dambi dhaaf weydiisanayay oo ilaahay lahaa astaghfirullah, ilaahu adaan dambi dhaaf ku weydiisanaya. dembigiisa hore dembigiisa dambaba waa la dhaafay. haddana waxaa arkaysaa nabiga calayhi salaam inuu dambi dhaaf ilaahay weydiisanayay. marka qofku waxaa la rabaa mu'minka maalintii ugu yaraan 100 jeer inuu ilaahay dambi dhaaf weydiisto si marka ilaahay subxaana watacaala uu ugu ilaaliyo dhibaatooyinka iyo waxyaabaha oo fidnada ama macnaha murugada iyo culeyska iyo faqriga iyo caafimaad darada u keenayo. marka insha allah qodobka afraad waxa waaye oo ilaahay subxaana watacaala noo ballan qaaday haddii aan sameyno in ilaahay subxaana watacaala yani
nacdaabaynin inta aan asaga ilaahay subxaana watacaala aan dambi dhaaf weydiisanayno. marka insha allah muuqaalkan halkaan kusoo gabagabeynayaa. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. fadlan like saara. asalaamu calaykum, soo dhawaada.